السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورويدو خليفة وآدي دين سلاميسة. ما أنت محنا وضع أنت دعسيت قروح ضبادان ما شاء الله تبارك الله. وحا هذا شراي والروتي وحاوس كجرنا واهيلي يقدار اسكو كريي اسكو هوريي أو مركاسيتو أن روتي أسكر كجدا بولي. ما شاء الله تبارك الله. أنت بس هيلبكي قدرة دي سوق بسلادة باكجرة مركز دا أكري. step by step هذا socon doontaan insha Allah tacaala qadar dhameystiran uumiga ka soo baxay oo ujeedaan hilibka iyo qudaartii aad bay isku gubsalaadeen tash baa ku bixinayaa markoo kaasa briskii fruitkii salarkii mooskii cabitaankii basbaas qumba laga sameeyay maasha Allah tabaaraka Allah waa qada yar oo isku dhuuq ah oo simple ah oo hadana cunto fiican oo protein leh oo wax taraysa marka maadaama rabadaan ku soo dhawayahay asku dayno inaas barno cuntooyin isku dheelatiran iyo cuntooyin qudaar fiican lagu daray iyo cuntooyin nafaqo leh oo jirkaaga u fiican insha Allah tacaala rabadaanka ilaahay khayr iyo barwaaqo nagu gaarsiiyo anigu waa su'aal ahay aad baan u jeclahay rabadaanka marka sidaa u sameeyay iyo waxaan ku daray indhiina idin macalina insha Allah tacaala wixii aan hilibka ka sameyn lahayn iyo hilibkii iyo wixii dhanba halkaas noo yaala marka waa anaa idinka la sheegaya waxa hadda aan taabanayo hilib waaye waa tooni kabsar waxaas basal waaye barbarooniyaal kala nooca baradho kaarot iyo zucchini intaas baan ovenka gelinayaa waxaas xawaaji dhudhub xawaaji buurbuur qorfe iyo heli dhaga yare waxaasna waa filfil waxaas waa maraq digaaga shiidan cusbayar oo qaada hafkeed ah halkaas waxaa igu jira curry powder iyo raqiga tamarindi iyo reiko ama mjusi mixi Kenya aad looga isticmaala mjusi mixiga marka intaasaan saliid yar isku qasayaa alaabtaas baan marinayaa باقولك waxa igu jira waa saliid yar alaabtii dhan iyo spaceskii dhadhanaankii caraftii dhan ayaan marinayaa waxaan umaleynaya inaa arkayseen dhaladaasayto soy sauce ama soya sauce ama soy sauce ka u taqaanidba baan ku dhibciyay waayo soy sauceka cuntada waxay siisaa caraf dhadhan hilibkii baan ku darayaa hilibkaan ku walaaqayaa kadibna waa ka gurayaa marka basashii barbarooniyaashii baan kusoo gurayaa dhadhanaankii iyo wixii maryarka ah oo meesha ku haray qudaartii baradhadii kaaroodkii zucchini kulli oo ka aruurinayaa si baradhada iyo hilibka isku dhadhan u noqdaan iyo khudraddaasayto oo markaasayto khudradda xoogaa yara dhanaan u noqoto
marka inta yartahayd oo meesha ka hartay baan ku walaaqayaa. digsiga iskugu geeyay khudradii iyo hilibkii iyo wixii dhan, marka baradhada iyo qudaarta basasha iyo kulli iyo hilibka si fiican aan isku dhex gelinayaa. saasaan ovenka ku gelinayaa, alumiya yar intaa ku duubo ayaan ovenka gelinayaa. run ahaantii wax biyaa kuma daraayo, wax saliid kale kuma darayo, saliid yar tahayadoo aan ku qasaya qudrada meehe iyo hilibka aan ku qasayay. marka asagaa ishuurinaya, asagaa iskarinaya. bariis hilib saa u kala dhacaayo uuma toog ku bislaaday, uumi ku bislaaday maa dhihi jiri aa kasoo baxaya insha allahu tacaala. marka idinkaa arki doontaan. bas ovenkan gelinaynaa, kadibna rootigaa qasanaynaa. hadda waxaa siita aan ku daraayo waa 2 xabo ukuna. sonkor yar 2 qaadaa baan ku daray. cusbo yar aan ku daray oo qaada nuskeeda. kadibna 2 qaado oo liibita baan ku daray, waayo liibitada waxaan rabaa dhaqso 25 minute ba inuu iigu kaco oo dhaqso aan jikada ka baxo. marka 2 qaado oo liibita baan ku daray si aan jikada usii taagtaagnaan ama ugu daahin oo burka dhaqso igu soo fuuro. waxaan ku dhibcinayaa saliid yar, waayo badhar ma iyaalo, badhar ma haysto. laakiinse saliida iyo badharka waa isku mid. saliid waa saliid saytuun ama liver oil ama olive, adigo waxaa rabtid u aqood. marka saliid yar oo olive baan ku daray bedelkii badharka. waxaas kaloo aan ku darana waa caano yar. kadibna burkii aan kusoo gambinayaa, burkaan ku qasaya. gacantan la galayaa oo burka markaa qasayso wuxuu u baahan yahay inaad si fiican gacanta ugu qastid. marka burka qasniinka hadduu kaa halaabo duwowgu kaa halaabayaa. hadduu jabaati yahay, hadduu mandhaasi yahay, hadduu caysh yahay, hadduu wax kasta yahay, burka haddii aa cajiimaysid ama qasaysid ama rafaaqaysid kaa rabtid u aqood, waa inaa maaragta si fiican u qastid oo marka hore si fiican aad waqti usiishid oo u qastid. burka waa isqa qabadsiinayaa, waa idin tusayaa intaa isqa qabadsiinayo. kadibna kaamirada waa jaraya, waayo kaamirada ay u dheeraanaysaa intaan burka qasaayo waa waqti. marka adookaasa waa isqa qabadsiiyey, si fiican baa idin tusayaa siduu isku qabsado. kadibna kaamirada jarayaa,
kadib waa isku soo laabanayna insha allah markaan si fiican usoo qaso hadii ilaahay idmo. waa kana waa soo qasay burkii saasuu isku bedelay maasha allah qurux iyo ma aragta jileec. maasha allah tabaaraka allah. bas alumiyankan ku xireynaa meel baan dhigaynaa 25 minute buu ma aragtay inuu sufuuriyaa. markaas kadibna insha allah hilibkii waan korka ka saaranaynaa ovenkaan ku gelinaynaa insha allah. hilibkii ovenka already noogu jiraa wuu noo bislaanaa waayo hilib xoogaa inuu bislaado u baahan yahay, laakiin si rootigu waqti badan ma u baahna. si fiican ina alumiyaanka ugu xirtid waaye. markuu fuuraa isku soo laabanayna insha allahu tacaala. haddana alumiyaankan si fiican ugu xiraaya meel baan iska dhigayaa insha allahu tacaala. waa isku soo laabanay khiyaaray. waa kana burkii oo si fiican usoo fiicfiicay maasha allah tabaaraka allah. soo fiicfiicay soo karay. marka waan fidinaynaa. markaa fidinana digsigeenan dhakab ku siisanaynaa daboolka intaan ka tuurno alumiyaanka. kanaaba alumiya noo ah. marka idinka arki doontiin biidni illaahi ilbaari. markaan hadda burkaanayto rootigan korka ka saarana digsiga insha allah. bariis yar oo cad baan idin tusayaa sida u karinayo. kulliba qof walba bariis cad buu garanayaa. bariiskan bariis aan dalacay ma ahan. waxaan rabaa qudaartaas iyo hilibkaas inaan ilmaha ku siisto qofkii raban rootigan uu ku cuno. haddii aad samaystid rootigan aad ku cuni kartaan waa okay, laakiin haddaa ilma yar haystid oo aysan rootiga kuugu cunaynin bariis yar oo cad ama adigu whatever waxaa rabtid u sameyso. marka bariiska wax badan kuma darin. waa bariis yar oo cad insha allah. bariis aan space iyo waxba ku daray iyo hilib ari oo caadiya oo hilib ari iyo bariisa insha allah channelka waa soo gelin doonaa. marka digsigeenaan soo dhaweysanaynaa kadibna gab baan ku siisanaynaa. ovenkaan gelin insha allah. akhyaari waa kana halkaas waxaa iigu jira saliid yar baa iigu jirta. bariis yar oo cad baan rabaa inaan kariyo oo space dhan aana ku darin. waxaas waa toon, waxaas waa basal iyo kabsar qorfe iyo filfil. basal kabsar qorfe iyo filfil bas intaas bas baan ku daray. aan caraf yar kaga rabo wax kale oo space la dhaho kuma daraayo. waayo already space halkaasaan kasoo buuxsanay. marka bariis yar oo cad oo just simple ah waan karinaynaa. run ahaantii saliidda dabka inuu ii daaran yahaan u maleynaya laakiin waa ilaaway. waxaad jeclaha saliidda markaan ku daro basasha iyo qudaarta ama hilibka whatever inay shagax ay dhahdo oo iyadoo ii karkaraysa aan ku darsado, laakiin waa ilaaway. halmaan halkuma jiro, laakiin dabkaa u dheereeyay isla hadday maaragta saliidu karkaraysaa. martaas already hadda saliidii way karkartay, way kululaatay. laakiin waxaan jeclahay saliidu inay aada iigu karkarto. marka
markaas kadibna aan hal mar wixii ku daro. halkaan markay marayso yaa mid yaraa igu dhex shanlayshatay oo telefoonka iga soo tuurtay, markaasuu digsiga korka kaga dhici gaaray. marka kaamirada xoogaa ay duulduuleysaa, iska raali ahaada. xoogaa kaamiradu la xirximanaysaa, laakiin waan hagaajinaya insha allah tacaala. gadaal baan ka hagaajinayaa. bas bariiskii oo ii dhaqnaa, biyo aan kusoo dhex riday 15 minutes biyo igu dhex jiray, aan biyo kasoo qaladiyey baa miirahaasayta iigu jira. marka bariiska ma qaleynayo, waayo haddaan bariiska qaleeyo wuu iga jarjarmayaa, wuu ku go-ayaa. horey baan biyo oola soo dhigay. bariiska haddaa biyo la dhigtay oo hore biyo oola soo dhigtay oo soo radisay, ha iska qaleynin, waayo kaa jarjarmanaa. laakiin haddaadan biyo lasoo dhigin waa inaa aada iyo aada u qaleysid. biyo yaroo kulul baan kor kaga keenaya, dadseed cusbo yar baa ku daraya, ovenkan gelinaya insha allah tacaala. hadda aan ku daro waa cusbo yar. bas daboolka saa u dheereynaya, ovenkan ayar gelinaya biidn illahi ilbaari. waa kaan ovenkan geliyey, biyo soo dhamaystay, soo bislaaday. ovenkan kasoo saaray bariiskii, waa karkarooya. always markaa bariiska karisid qorfe iyo heel iyo kabsarta haddaadan tumin oo aad jarjartid, laamalaamaheeda yarkaa iyo korbay soo fuulaan. marka dadka qaar waa ku walaaqa, laakiin anigu waxaan jeclay inaan ka guro. haddase laakiin wax badan kama goraayo, intaas muuqata unbaan ka qaadaya, kadibna waa ku walaaqaya. waxaas wixii lagu carcarfiyey waaye. haddaadan rabina kulli waa iska guri kartaa, kor unbay soo fuulayaan, hoos waxba ma jiraan. bariiska inuu sidaas furfur u yahaan jeclahay, ma jecel bariiska inuu aada u bislaado. bariis marka aada u bislaado ama baastada whatever waxaa karinaysa markay isku dhashaqaan tastigaa ka dhamaada. marka waxaan jeclahay bariisku saas inuu kala yaayaacayo, xabad meel oo carareyso. waxaan ku darayaa food colorkaas yarka. food colorka aada buu yaryar run ahaantii. food color badan marba inaan ku daro bariiska dhan uu yellow iga noqdo.
intaas bas aan ku darayaa intaas yartaa waa ku filan bariiska dhan jaalo ma rabo inuu iga noqdo ovenka iska geliyey marka tii kala soo diyaarinaya insha allah waa kana haddii war la qabo xiisa male horey baa usoo aragteen taasaqada dhammaystiran oo ma aragti maasha allah tabaarakallah fitaminkeeda wadata rootiga inuu jaray horey baa usoo aragteen horey baan faahfaahinta usoo bixiyey taasaqadadaas quruxda badan wax weyn maahan hilibka ovenkaa gelinaysaa rootiga wax yar baad qasaysaa kadibna hilibkaad ku gambinaysaa bariis yar cad oo isku dardartay ovenka geli waa wax less than 1 hour ka yar marka maasha allah tabaarakallah ilaahay rabadaanka barwaaqo iyo bashbashan uu gaarsiiyo caafimaad iyo cimri qab kuwa ka faa'iideysta ilaahay ha naga dhigo bishaas barakaysan waajibka ilaahay saarna sidii ilaahay u saaray kuwa guta ilaahay ha naga dhigo qadadeeni halkaas ay noogu dhamaatay aad iyo aad baan idiin salaamaa fadlan haddaa ka heshay subscribe ii saara khayr badan rajay